cuntooyinkan ha ku saxuuran. ramadaanka waxaa isbedela nidaamka cunto ee dadka soomaya, waxaana ay sabab u noqon kartaa dhibaatooyin ay ugu yar tahay in miisaankii ay ahayd inuu qofka ka dhaca uu kordho iyo in ay keento dhibaatooyin caafimaad. waxaa muuqaalkan talo idinkaga siinayaa cuntooyinka aan ku habboonayn inaad ku saxuuratid. kow, cuntooyinka ama cabitaanada laga sameeyo sokorta badan waxa ay kordhiyaan haraadka, waxaana ay sababaan dibiro ama dibiryo. iska jir macmacaanka inaad badsato guud ahaanba muddada soonka, suxuurtana haba u dhowaan. labo, kaafiyeyntu waxa ay jirka ka saartaa biyaha, gaar ahaanna waxa ay badisaa kaadida, taasi oo keenta in jirku uu biyo badan lumiyo iyadoo markii horeba aanu biyo lahayn xilliga maalintii oo dhan. haddii aad xilliga suxuurta cabtana waxa uu keenaa in maalintii gelinka horeba aad dareento engeg iyo biyo yaraan badan, taasi oo sabab u noqon karta madax xanuun, burbur jireed, daal iyo in dhugmada maskaxdu ay yaraato, indhuhuna ka daalaan u fiirsiga. taas beddelkeeda waxaa laga yaabaa haddii xilliga afurka aad cabto goor hore aad ka soo kabato dhibaatadaas oo aysan waaberiga hore kula gaarin. cabitaanada ay kaafiyeyntu ku badan tahay waxaa ka mid ah bunka, shaaha iyo qaybo ka mid ah cabitaanada soodhaha leh iyo wixii la mid ah. haddii aad helayso bunka nuuciisa laga saaray kaafiyeynta, dhibaato ma laha inaad cabto xilliga saxuurta. saddex, xilliga saxuurta iska jir cuntada ay ku badan yihiin xawaashyada, basbaaska iyo milixda badan. xawaashyada cuntada ama shaaha lagu daro filfisha, kaariga iyo wixii la mid ah waxa ay sababaan calool olol iyo in ay dhuuntu ingegto qofka. sidoo kale milixda badan oo cuntada laga badiyahay waxa ay sababtaa haraad. haddaba dhammaan ka fogey waxyaabahan suxuurtaada. afar, cuntooyinka loo yaqaano cuntooyinka fudud ama degdega ah ayaa iyaguna aan ku habboonayn saxuurta, waxaana ka mid ah biisada, sandwiijyada iyo wixii la mid ah. waxa ay leeyihiin xawaashyo badan, waxaa kaloo ku badan dufanka, sidaas awgeed waxa ay keenaan dibiro, haraad badan, engeg, hurdo xumo iyo wahsi badan. shan, cuntooyinka shiilan waxa ay cabaan saliidda iyo dufanka laga sameeyey, sidaas awgeed waxa ay sababi karaan gastrig iyo haraad badan. saxuurta ka dheeree cuntooyinka dufanka lagu shiilay sida sambuusyada iyo wix la mid ah. lix, basasha iyo tuuntu waa cuntooyinka dhadhanka iyo dawada ku biiriya cuntada, laakiin waxa ay leeyihiin ur ay adag tahay inuu qofku iska tiro, gaar ahaanna marka aadan cunto dambe cunayn. iska jir inaad ku saxuurato cuntooyinka basasha iyo tuuntu ay ku badan yihiin ama inaad iyaga laftirkooda si toosa u cuntid, waayo waxa ay keeni kartaa dibiro iyo laab olol. waxaa kaloo ay keentaa ur aan fiicnayn inaad bulshada la dhex gasho, si aad isaga bi'in kartaana aanay jirin xilliga maalintii ee la sooman yahay. toddobo, sharaabka ama cabitaanka soodhaha leh ayaa sidoo kale sababi kara macaan badan iyo dibiro, waxaana uu qofka ku abuuraa dareen beeneed in uu dhergay. sidaas awgeed cabitaankiisu si guudba caafimaadka uma fiicna, si gaar ahna xilliga saxuurta oo qofku uu keeno gastrig, gaajo maalintii ah iyo midda ugu daran oo ah haraad badan. haddii aad muuqaalkan ka heshay laagdeh, sidoo kalena asxaabtaada kale u sheergalay oo koobi linkiga taabo. mahadsanid.